golaha hal-abuurada Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa xarunta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ayaa maanta kulan la yeeshay madax dhaqameedka ee waxgaradka gobolka Sanaag iyo sidoo kale dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada. Hal-abuurkan ayaa ujeedada gobolkoodu tahay sidii xal waara looga gaadhi lahaa colaadda muddooyinka badan soo noqnoqotay ee ka taagan gobolka Sanaag. Waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbro oo sheegay in abwaanadan ay u socdaan inay ka qayb qaataan nabadgelyada gobolka. inaga soo booqday Hargeysa canaanayaan bay nolol soconado dadkii bal waxba maqli waay reer Ceergaabo iyo reer Sanaag oo dhameeyay warba dadkan wuxuu soo sheegnaa la nolol socdaa waxay u socdaan horta inay xog helaan nabadgelyada daradan iyo waxaan soo noqnoqonaya iyo balaadan meesha ka jirta inay xog helaan waxay noo wadaan inay bal suugaan inoogu sheegaan dhibaatada ay haysato waa abwaanintii dalka sidoo kalena waxa halkaasi nuxur khudbada ka akhriyay mid kamid ah hal-abuurada Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sanaag iyadoo lagu jiro bil Ramadaan waxaanu magaalooyinkan deganayn iyo guryahan deganayn u fadhii kar weyn oo uga nimid waa dhiiga ka daadanaya ceel afweyn iyo dadkeena halkaas ku maranaya taasaan u fadhii kar weyn oo aanu u nimid cidinama ay soo dirin dawladnimo ay soo dirin damiirkaygaana soo diray anaga kharashkayga iska soo bixinay halkan markaan nimid anaga kharashkayga ku degnay hoteeladeeda iska dabarnay anaga ay soo xilqaanay waxaanu sunida arxan noqda oo dadkiina tusa inaad la dareentihiin oo la damqanaysaan xabada ceel afweyn ka dhacaysa adoo Hargeysa burciyo boorma joogaad ka siixan weydeen inta kadibna markii uu soo idlaaday kulankaasi waxa si wada jira saxaafadda ula hadlay hal-abuurka Soomaaliland ee ku sugan magaalada Ceergaabo iyagoo baaqna u diray cid kasta oo damiir leh si ay uga qayb qaataan daminta shaqaqada ceelaf weyn kaad way joogto marbaad weysa jalaysaa waqa weerar joogiye qabiil way soo wadataa weelkiisa kii dilay haduu nacab la waalaysto weera soo hujuumiye dhurwaa weydaba cunaa waxa lagu warmeeyaa halkuu dhigay walaalkii filkin hayso weeqina rag bawacdidin anagu waxaan nahay koox hal-abuura oo reer Soomaaliland isla markaana ka damqaday damiirkoodu diiday inay Hargeysa iska fadhiyaan iyadoo oo mushkiladaasi ay taalo qayb dalka kamid ah arrinkaas oo ku soo noqnoqday dalka waxaanu istusnay inanka ceel afweyn iyo inanka fadhigaab iyo inanka siigacsi joogay bilaa iskuulkii ee qoriga isku dilaya inta ay colaadaasi jirto inaan Hargeysana ku bid lagu ciyaareynin inaan aanu iskuul dhiganin haddii arrin dhamaan weydo waxa la yiraahdaa waxba ka dhiman ama waxba ku dheer muddooyinkii ugu dambeysay waxa maqlaseen shaqaaqo ku saabsan ceel afweyn oo istilayaan laba beelood oo walaal ah arrintaasi saameyn bay guud ahaan jamhuuriyadda ku yeelatay dareenkayga ku yeelatay waxay ku yeelatay damiirkayga oo takaliftay ee keentay inaan halkan nimaadno anagoo soo xilqaanay waxaan doonaynaa in intii ilaahay nagu asturo karo nagu asturo oo ilaahay baan ku weydiisanana in arrin amoorta halkan aanu joogno noo fudaydiyo annagoo ah hal-abuurka Soomaaliland waxaanu safar 100 kiiloomitir u soo soconnay si aanu doorkayaga uga qaadano ergada iyo nabadaynta shaqaqada soo noqnoqotay ee ka dhacday guud ahaan ama gaar ahaan deegaanka ceel afweyn ee gobolka Sanaag waxaan la kulannay qaybaha kala gedisan ee bulshada haday madax dhaqameed tahay haday dhalinyaro tahay haday cuqaal tahay dhamaantood si fiican oo wanaagsan oo niyad sami ah bay noo soo dhaweeyeen waxaan insha Allah maalmo u joogi doonaa ama muddo aan u joogi doonaa in aanu karaankayaga ka qaadano isu soo dhaweynta dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee uu shaydaanku ka faa'iideystay waxaan guud ahaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland in ninkii fadhiyaana uu kaco kii taageerna uu ka dhaqaaqo mushkiladda halka ka bilaabantay waa mid guud ahaanteen saameyn weyn ama inoo wada saameynaysa anagoo u soconay hawsha iyo dhibaatada dadka walaalaha ee shaqaqada ka dhextimi anaga sidaa nimankayga horreeyeenba sheegeen cidinama wado dawladnimo isku dirsan damiirkayga iyo islaamnimadeeda iyo Soomaaliyeednimadeeda ayaana soo dirtay inaan halkan nimaadno markale waxaan iigara mahadcelinayaa dadka gobolkan jooga iyo magaalada aan ugu nimo dad jecel nabadda waa dad jecel oo raba in arrintan ay soo afgoodo si fiican baa inoo soo dhaweeyeen maamul ahaan cuqaal ahaan shacab ahaan cid kasta oo
halkaas aanu kula kulannay iyaguna wanaag baanu kala kulannay barkhad maxamuud geedi bulsha TV magaalada Ceergaabo.